يا يا سي في جيجي كان سي في جيجي بقى مشكور محمد سي في جيجي إذا ما بقيت يعني أشرح إيش بطوقها halkaasay fahmooyin balmaynaya tani waa tusaale nool oo noloshu ay siisay in noloshu ay iga baahan tahay go'aan degdega oo aan ku badbaadinayo haddii maanta waraaqahaygii haddii maanta xogteedii haddii maanta cv-gaygii aan ka helay qashin berina waxaan filanayaa waxay tahay in anigoo dhan aan qashin iska dhex helo haddii aanan go'aan qaadan waa inaanan qofna sugin waa inaan bilaabo shaqada ugu horraysa ee aan awoodi karo inaan qabto waan ogahay meesha ay dhibaatadu iga heshay inay tahay inaan anigu markii hore isla weynaa oo iskala weynaa shaqooyin badan balse maanta ayaa nolosha ii sheegtay inaanan ahayn sidaas balse ay ceeb igu tahay in maalin walba qof aan ishoos dhigo shaqo waa inaan shaqaysto waa inaanan gurigayga ku sugin in shaqo laygu yeedho hortaniyow xogaa intayn isku ogeyn wax dambe ka soo kordhamay jira calaykum salaam shaahiga yaala quraaciga yaala sambuuskiga yaala صح kafeega ma haysa ها koob kafee شام ما يسألك سومالي اوكي سومالي تي انا كان بلا سكر سكوت سامي على اوكي هذا هاي ما قلنا صح wariyaa محل ما محين ninkan xagan ku arki jiray miyaa إني كان هاي ninkan isku galaas magaca isku أشكر هاي ما وإيه بيسوي إيه هاي أبي سوقني وين ma أنا وإيه هاي والله iyo isagii man ma والله ولفتك نون ما حالين niyo isku شغلي galaas baan قبل ahaan jirnay ardayda galaas ugu firfircoon buu kamid ahaa صح qalgal ma ninka mala waa nin waagnayo mala waa walaalkii هو أنا أقول لفتريس wala لفتريس إنه ya maxaa helin waqti iyo ama maxaa odayga maxaa saaxiib adaa ay kasudigi israaci jiray ka warhayeen yaani ku kibir gelinin shahaadadan aad sidato ha isku arkin qof dadka kaloo dhan ka sarreeya markaad jaamacad aad ka soo qanajibiso filashadii quruxda badneed aad haysatay markaad jaamacadda dhiganaysay markaad weydo ha murugoonin marka aad weydo filashadii quruxda badneed ee ahayd inaad noqon doonto mid ku shaqeeya dhaqaale badan markaad weydo ha murugoonin oo ha lacalin oo ha odhanin wixii aan dhiganaya khasaare ay ahaayeen waxaad marar badan arkaysaa intaad suuqa dhex marayso nimaan weligii waxba baran oo haddana dhaqaalo badan sameeyey sidoo kale waxaad arkaysaa nin sita shahaadada ugu sarreysa waxbarashada PhD oo haddana shaqo aad u yar haysta dhaqaalo badan aan samayn fikir ayay kugu abuuraysaa oo su'aal ayaaba gelaysaba jaamacaddan aad ka soo baxday balse walaal waa inaan ogaano waxaan wax u baranayno inaanay ahayn inaan dhaqaalo samaynay balse ay tahay inaan dadkeena ku anfacno inaguna ay jahli kaga baxno balse haddii aad doonayso inaad dhaqaalo samayso waxaa jirta waddo gaar ah oo loo maro waddadaas waa inaad ganacsi furato taasoo dhaqaale ka samayn karto suurtagal ma aha in wax diyaarsan lagugu keeno gurigaaga fursaduhu suuragal ma aha inay kuu yimaadaan adigoo iska jiifa haddii aad 100 meelood aad u xareysatay shaqo si aad u hawlgasho ha u malaynin inay kula soo hadlayaan oo ay ku oranayaan soo kac waxaan ku haynaa shaqada igu wacnayd ugu dhaqaalaha badneyd kaalayo shaqayso base waxa lagaaga baahan yahay adigu inaad dadaal badan la timaado haddaba walaal rooma laguma dhisin hal maalin maalinba maalin ka dambeysay waxbaa ku kordhayay sidaas la mid ah waa inaan shaqo un bilowno inagoo ka faa'iidaysanayna xirfadeenna maskaxdeenna iyo waqtigeenna marba marka ka dambeysa way sii kordhaysaa ilaa maanaan gaadhno heer wanaagsan oo aynu ku guulaysano
shaqo waa ka shaqo shaqana shaqada kale kama sharaf badna ee kaliya way kala mushahar badan yihiin